السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحابتي ذا قالي ميل بجوكتين يسوى الباقي يداونيسين هلكا يداونيسيد وا simple إيمان magacayga waa Faadimo Bashiir Mire please haday tahay marka kugu horeysay channelkan aan soo dul istaagtid ama ee tahay inaad hore u sii joogtay please mar walba subscribe noo saar hadaa hore noola joogtayna di like ta iyo commentiga nagu sharaf asxaabta qaaliga ah waa maasantiin meel walba ay joogtiin sida quruxda badan ay la socotiin sida quruxda badan ay message-yada comment-yada quruxda badan ay ugu soo qoraysiin dhamaantiin waa maasantiin mar walba ana marka inta fariisto waxa jeclaa inaan mahad celiyo ilaahay ka soo mahad ilaahay usugnaatay laakiin ilaahay ka soo waxa jeclaa asxaabtada qaaliga mar walba inaan mahad celiyo maxaa maanta meeshan u soo fariistay maxaa idin wadaa asxaabta qaaliga ah hadii muuqaalkan ku anfaco comment-iga igu soo qor waxay dhahdaa muuqaaladan oo kaleeto soo badiyaa horto mise aan aragno inaan ku fiicanahay in kaleeto laakiin at least inaan wax sheegi kara aaminsanahay maanta maxaa halkan u soo fariistay waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobo yar yar oo maybe qaarkiina laga yaabo in aad si kale u fasirateen qaarkiin kalena laga yaabo in sida saxda ah u qaadateen maanta meesha waxa uu fadhiyaa inaan ka hadlo arrimo muhiim ah waxa la hadlayaa dhammaan dhalinyarada rabto in ay horumar gaarto ama dhalinyarada rabto hiigsi nololeed in gaarto rabto ayaan la hadlayaa saaonahay bini aadan qofba maanta qayb dadka nool ee bini aadanka waxay ku nool yihiin nolol qaar waxay ku nool yihiin middle class qaar waxay ku nool yihiin high qaar waxay ku nool yihiin lower class adiga marka meesha adiga isgeeso bay noloshaada noqonaysaa waxaan rabaa inaan ku sheego qodobo ka caawinayo in noloshaada middle atay low tahay middle noqoto haday middle tahay high in noqoto waxa waaye asxaabta qaaliga isa ognahay buu dhalinyaro markaan nahay qof si u fikira qof si u fikiraya qof si kale u fikiraya qof si kale u fikiraya qodobka ugu horeeya rabo inaan sheego waxa tahay la soco qof aad isku fikirtihiin macnaha aan ka wada waxa waaye marka rabtid in at least wax soo kordhisid ama ay naftaada ku sheegtay in aad wax qaban kartid la soco dadka isku fikirka aad tihiin oo ah dadka isku sida u fikiraysiin isku sheekada tihiin isku mabda'a aad tihiin yani isku dhaan dadka aad raran kartiin oo maanta aad isleedahay qofkan isku dhaan aad raran kartiin ama qofkan isku wada u socotiin oo ama qofkan wado isku aqliyaad tihiin oo maanta at least waxba isku faa'iideyn kartiin labadiina marka isku yimaadeen laakiin ka waran hadaa la socotid qofka khibrad hooseeyo hadibaato oo kula haraysaa because qofka hooseeyo marka la socotid adiga waxa iska dhaadhicinaysaa in qofkaas adigana aad isku garaatihiin ama aad ka hooseysid baa aaminaysaa marka mar walba waxa isku daydaa hadaa rabtid inaad noqotid qof yani wax bulshada ku soo kordhiyo in aad noqotid qof la socdo qofka ay isku fikirka yihiin qodobka labaad ee rabo inaan sheego waxa waaye maybe dadka qaar si qaldan oo aaminaan ama qofka si kale uu fasirto saa horena igu soo sheegay laakiin inta wanaaga jeclaan u sheegaya mid labaad waxay tahay haduu jiro saaxiib qaldan oo noloshaada ku jiro oo wax ku soo kordhinaynin ama waxba noloshaada ku soo kordhinaynin haduu jiro please noloshaada ka saar waxaan ka wadaa pointigaas anaga badankeena waxaan nahay dad dhalinyaro ah waxaan leenahay saaxiibo waxaan leenahay asxaab waxaan leenahay ehel waxaan leenahay dad kala duwan waxaan leenahay dad aan isbarasho guud naga dhaxayso marka waxa jira dad close ku ah oo saaxiibo adiga ku dhow ah qofka saaxiibkaaga ah markuu adiga maanta ku dhaho soo baxa waqtigeena waxa ku soo guminaa soo ciyaarayna soo bax meel kale aadayna soo bax sawira iska soo qaadayna soo bax meel qaar oo munaasab ah ayna aadayna soo bax yani waqtigaaga dhan wuxuu ku dhuminayaa ciyaar iyo inta aadayna iyo sabiran soo galayna iyo at least wax yar oo xataa wax jiro xataa ma aragtay oo adiga wax kugu soo kordhinayo sidoo banaan qofka bini aadamka maxaa la rabaa marka maanta 12 ka wax qabanaysid caawa marka gurigaaga tagtid waxa dhigi kartid waxaasan soo qabta maanta yani qalbigaaga ku qaboojin kartaa ariis kartid maanta
good waxaas soo qabsaday good caaws fiican oo saxan kara waxaas soo qabsaday laakiin hadaaba dhihinin totally baad dhihinin maxaa sameynay qodobka saddexaad waxa waaye aan rabina aan halkan ka sheego oo aan rabina u soo hormaray laakiin hadda ma lahan hore ka sheeg ama gadaal ka sheeg hore qofka haduu yahay qof waalid caasi ah waxa arkaysa dad badan oo laba qof oo isla socota arkaysa ee dhalinyaro ah badan aniga waan arkaa qof shaqeynaayo qofka kale tan uu shaqeyn labada dhalinyaro waxa laga yaabaa maybe inay shaqo hayaan oo at least wax un helaan bisha markay dhamaato waxa arkaysa qof ka fikiraayo familkiisa oo dhahayo hooyaday bisha markay dhamaato intaana siinaya in aabihii bisha markuu dhamaado intaas familkay ku daraaya waxaas bishan ku qabanaya mar walba ka fikiraayo familkiisa arkaysa laakiin hadaa la socotid ama aad mar walba friend ka dhigtid qof aan ka fikireen familkiisa labada shilin oo meel ka soo qaado ku dhameeyanayo inuu hotel ku aado in uu ku cayaaro in uu ku baashaalo in uu wax walba ku sameeyo ma fahanti just yani wax dadka dhalay wuu iloobo asaga waxaas mar hore maskaxdiisa ka bixin zamaani waalidku soo koriyay adoo ilmo yar oo saqiir oo sabi ah iyo qof weyn ka dhiga qofka aad tahay maanta hooyo aaba ka dhigeen hooyooyinkan iyo aabooyinkan janooyinka Allah geeyo dambigooda Allah dhaafo heerka marka lagu soo istaajiyay oo wax lagu soo baray at least ama wax baratay maxaa laga rabaa ina guriga jifta laga marabo ina agseexatid ka marabaan canjeeradii ina shalay la cunaysay oo canjeeradii shalay ay ku siinaayeen ina ka kortid wax qabsatid wixii ku soo galana aad waalidkaaga qaar dib ugu soo celisid wax kalena aameel ka dhigtid waay laakiin badankeeda waxa sameeyna dad badan oo aniga hadda aan ogahay halkaan iga daaban doono waxa uu sheegayaa please waalidkaaga way ku soo koriyeen hadaa aragtid qof noocaas oo kale to marna waalidkiisa aan soo xasuusanin please iskaga har adigana bari waxa noqonaysaa heer ayaga amal aan noqotid ama aad ka dirtidbo asxaabta qaaliga saddexaas qodob ayaan ku soo gabagabeynaya hadaa mowduucan ka heshay oo aad mowduucan aad isdhaxda at least waxba ka faa'iiday commentiga igu reeb oo ama aan part 2 part 3 ma aan ka soo sameyn karo hoos igu reeb asxaabta qaaliga hadaa muuqaalka ka heshay like noo dhig comment noo reeb wixii fikir ahna dee hanaga baqeelin fikirkaaga u baahanahay wax uu nagu soo kordhi inta barnaamijkan ama muuqaalka xiguu kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.